maaragtay maadaama recording uu yahay oo la dhageysanayo qofkaas uu dhageysanayo in aan la soo gudbin karin oo marka maaragtay ilaa go'aankeeda laga gaarayo wixii arrintaas laga dhihi lahaa iyo wixii laga sheegi lahaa ilaa maaragtay madaxweynaha go ahead dad uu ka siinayona aan la bandhigi karin marka annaga waa daawanayna waa u jeednaa waxyaalaha dhacayo dhanka maaragtay markii oo dagaaladan ay bilowdeen iyo kulli culeysada iska yimaadeen waxyaalahaas dhan way jiraan marka waxaan filayaa insha allah ayadoo faahfaahsan mar kale markii meeshan lagu casuumana in maaragtay ayadoo waxba aan la kala qarsanaynin markaas laisku tuuraayo la kala caddayn doono laakiin ilaa intaas maaragtay sababtii wixii sababay iyo ulajeedada ay tahay iyo maaragtay ma rabi inaan ka hor dhaco maaragtay wax aniga keligeyga waadaama wasiir warfaafin aan ahay wixiina oo waxaa sheegtidna ay yihiin wax oo maaragtay oo xaqiiqa ah ay yihiin marka in oo ayadoo go ahead aan la siinin oo madaxweynaha markaas uusan nala wadaagin in anagana maaragtay aan gudbino xogo marka waxaan isleeyahay meelo badan waxyaala aniga aan ka tagay way jiraan sababtaas sabab ay u tahay ay ku fiican tahay markii in oo si fiican markaas loo sharxi karo markii madaxweynaha iyo arrintaas laiska arko oo la fadhiisto laga warbixin karo marka taas waxaan codsanayaa insha allah in oo kulamada kale soo socdo lagu bayaanin doono waa maasantahay wasiir wixii kala safayd ah and police or security reason ah and waa maasantahay keep it and markna in the best interest of the administration ka aad ku macalinayaa marka ku raacsan arrintaas waa ambassador Sama ku salaamay and walaalkii Jamal he is very well of that kind of area he's very intelligent guy he knows a lot about security and all that stuff thank you very much waa mahadsantihiin anigu waa idin boobay u yarkaadi wait anaa wax yar kaa horeeya ayay iga raalli ahow ambassador Warsama iyo Muxsin waan salaamayaa su'aal baan u qabay runtii wasiirka oo hadda caqabad ah maaragtay ama isku turtuur ah ilaa hadda anaga ma arkin waana inay isku fiican yihiin inay isla kulmeen kulankii ugu dambeeyay oo madaxweynaha iyo maaragtay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Lafti Gareen ay isla kulmeenoo qodobo laga soo saaray shirki Muqdisho ka dhacay kadibna wax oo khilaaf ah ama maaragtay oo anaga madaxweynaha la wadaagina ma jirto marka xiriirkooda inuu fiican yahay ognahay intaasaan ku ognahay anaga that's very important and that's important in madaxweynaha wadanka uu yahay in wada shaqeyn ka dhaxaysa ma inay saaxiib noqdaan laakiin geljiraha geela waa jirtaa waana kala jirtaa so professionally and they have to work together ma inay friends noqdaan badaasna wixii interest wadanka ugu jirto oo shaqo u taala oo labadoodaba they have to do everybody have to work together waa important professional in ma kan loo wada shaqeeyo and arrintaas amana other taas ku dhigta sama Indeed with you, Ambassador. Thank you, brother. Thank you, Ambassador. waxaan rabaa inaan u gudbo walaalkay Maxamed Barre oo activist he also a writer and he also a very famous guy on social media different platforms Facebook noqoto Space and Twitter everywhere brother Maxamed and go ahead and he is also run hadda ka hor wuxuu isku sharaxay madaxweynaha Puntland and the last election inshallah hadana waa musharax xasan aan rajaynayo Maxamed ku soo dhaw محمد بري بيز واي وحسيني سفادو مي هو أنا قعنو تاعين الماتنا walaalayaalow batarigana way iga dhacayay just waxaan rabay inaan dhaho walaalkay inaan u hambalyeeyay madaxweynaha daaseed ka hormari karaa go ahead sister okay waa mahadsantahay horta waxaan rabay inaan u mahad celiyo madaxweynaha annaga aad baan u taageersanahay Southwest madaxweynahooda inay ku jirto Soomaalinimo shaqo wanaag waxa uu qabtayna ummadda Soomaaliyeed oo dhan wuu u qabtay waxaan aad iyo aadna u jeclaysanay shaqadiisa iyo hufnaantiisa iyo daacad inay ka tahay meesha uu joogo hadda madaxweynaha uu ka yahay inay ka go'an tahay inuu wax u qabto
which aynu ka weyne madaxweynayaasha isku sheega hadeertaan isaga la midka ah hase ahaatee uu maanta uu yahay halyey Soomaali oo kasoo dhex baxay marka waxaan rabnaa inay naga gaarsiiso haddaanu nahay CBB waxaan rabnaa inaad naga gaarsiiso Ilyaasow madaxweynaha yaga anaga madaxweynuhu noo yahay inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shaqada uu hayo halkaana inuu kasii hayo weliba waxaanu jecelnahay inuu isu soo sharaxo next time madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan hadduu Ilaahay idmo aad baana kaaga mahadcelinaynaa imaashada aad noo timid madaxweynaha dad noo soo casumi karna aad baan u jeclaan lahayn guul iyo gobonnimaanu idinkaga rajaynaynaa garabkeenana waynu taagannahay intaasaan rabay inaan dhaho waa mahadsantiin ku soo gashan sorry ها وما سنتهي thank you وزير مركله وما سنتهي thank you ambassador إن شاء الله waxaan sameynayna waxa requestiga noogu jira dad badan marka qofkii dhiibtay hadalkiisa insha Allah hadda soo raali ah waxaan jeclaanahay inuu hoos noogu dago si aynu dadka kalena fursad u siino iyagoo maaragtay qof kastaba ma garanaysaa aan ku xushmaynayno ayaan raali ahow waa laga soo horeeyay waad ku soo booday marka waxaan diidahay inaan labadiina idin dhex galo oo maaragtay kurtigaan iska garab hadalno ku soo dhawow noona soo koob insha Allah waa mahadsantahay waa mahadsantahay Faadimo haddaad rabtid waad ku hormari kartaa macaan wax dhibaato ma leh anigu maya nabad iyo nolol ha ku horeyso Faatimo u dhiib adoo wasiir Ilyas waxaan ku leeyahay fariinteena naga gaarsii madaxweynahaas waa nin ku dayasho mudan sida runtii ah wax ummadda Soomaaliyeed loo qabtay meel kastay joogaan waa wax Soomaaliyo idin loo qabtay dhibaatooyin badan baa iyo dacwooyin badan baa ka jira maamul goboleedyo badan laakiin sida runta ah maamul goboleedkaas waa maamul goboleed ku dayasho mudan inankaasan ayada u nahayna oo horyaalka Soomaaliyeed ah na waxaad leedahay ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan way ku garab taagan yihiin waynu idin garab taagannahay insha Allah biidmillah waana dadka aan indhaha ku hayno on insha Allah biidmillah wuxuu ka mid yahay dadka maanta ku hanweynahay inuu noqdo halyeel Soomaaliyeed oo Soomaali hoggaanka inuu u qaban karo liana dadka uu hogaaminayo hoos jooga sidoo uu cadaalad faray inuu Soomaaliyo idil u cadaalad falayo aynu aaminsanahay marka Ilaahay ha garab galo dadkaasna Ilaahay barakeeyo waxaana ka codsanayaa in walaalihiis kale oo maamul goboleedyada kalena bal inay ku daydaan asaga uuna intii uu wax la qaban karo uu la qabto horumar Soomaaliyeed waa mid loo wada dhan yahay marka bal insha Allah biidmillah fariintaas naga gaarsii maamul goboleedyada kalena si uu wax ula qaban lahaa jidku asaga maray meelihii aqabadii helay sida uga gudbay in bal uu la taliyo walaalihii Soomaali ay u wada maxaa la yiraahdaa ay horumar u wada gaarto horumar hadii la wada gaarana qarannimo aynu gaarayna dhibaataduna way yaraanaysaa marka insha Allah biidmillah Ilyas adna waqtiga ummadda Soomaaliyeed siisay jazadaada jannatul firdaws Allah ka dhigo nomadic voice waxaan leeyahay markasta waxaan idin kaga baranay inaad ummadda Soomaaliyeed u soo gudbisaan barnaamijyo aad iyo aad muhiim ah madaxdooda iyo dadkoodana aad isu keentaan ayagu kala dhergaan marka Ilyas mar labaad mar saddexaad soo dhaweeyay macaan mar kalena waynu filaynaa inaad noo soo noqoto insha Allah biidmillah thank you so much Hana aad baad u mahadsantahay insha Allah waynu isku daynaa inaanu dadka nu cadaalad sameeyno gacmaha sidii loo soo taagtayna aanu maaragtay aanu siino inta badan maama maxaa la dhihi jiray Hana waxay tiri wiilkan ayeeyada u nahay wasiir waxaan rabaa inaan ogaato ayeeyo qof kasta ay dhahdaaqo ayeeyaan u nahay marka hadalku macnaheedu ma ka dhahay kurtigan dadkana oo dhan inaynu ayeeyo u wada nahay ma ahan adiga iyo madaxweynaha marka sidaa ula soco ayeeyahana la yiraahdo free car bay ku wadataa markay soo gashay spacedan raalli laga ahaado Faatimo walaashii soo dhawow dadkii u hor taagtay gacanta adiga iyo Hinda isku kin xijin doona soo dhawow
السلام عليكم وين سلامي الياس انت ماشي كجرته ورهرت عدالة ku dadaala gacantaaga ha shaqeyso maxaa waaye meeshan oo la iska soo recorded ku soco intaas haddaan ka uga baxo saddex su'aalood aan weydiinayaa Ilyas midda koobaad waxa waaye in koonfur galbeed lagu soo maqan yahay wax cad bay ahayd marka wax ka hortag ah oo aad samaysaan ma jirtaa haddayna jirin maxaa u suubin weydeen faaduma noo joog noo keep gara insha Allah gacanta noo taago mar kale haddii inuu maqlahay in kale si aan u ogaano noo joog wiilka uu joogaa hoos loo dhacay loo soo noqdo leh oo microphone-ka he's in here dhageysanay but in order to answer insha Allah inuu kor soo noqdo waaye hello hadda way soma marba hoos u dhacay qadka tacbaan شيخ كوسع وزير قبل واحد كلها سؤال شو مقلاي ها سفي أنا مقلاي هذا ما صار دمانتنا دتك قرن حلقة عن دقيسناي أو الجلنت يو ماركتي بوجادينسا ومدحوينا وسو جدينايين مدحوينا أبدع عسيس ومضيع هاي إن ماركتي ونقضوا مدحوينها صوماليا لأن ونقضوا أيو مضيع هاي marka anagana taas waa tan aan u taaganahay inuu heerkaas noo gaaro waan jecelnahay idin waa jeceshiin ilaahay ha ku guuleysiiyo ilaahay ha gaarsiiyo heerkaas aan leenahay insha Allah inuu madaxweynaha Soomaaliya uu noqdo madaxweynaha Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen intaas markaan ka soo gudbo walaashayda waxay weydiisay maaragtay Southwest waa lagu soo wajahan yahay ama waa u soo socday waad ogtiin ma ka gaartamateen ay tiri marka qof kasta uu ogyahay qabri in loo wado marka annaga ayadoo soo koobay qof uu og yahay qabrigiisa iyo godkiisa og yahay marka hadaaba marka aad og tahay in marka aad u diyaar garowdid waajibna saaran waay marka insha Allah marka anigoo soo koobayo Southwest maragtay wixii oo dhibaato ah ama ku soo socdo in annagana aan ka difaacno aan hor istaagno waajibna saaran waay waana muhiim ay noo tahay in maragtay naf iyo maalba aan garab dhigno taas waa taas ayadoo kooban marka cidii ay naqataba ciday rabta ha naqato anaga Southwest waa difaacina insha Allah su'aasha kale oo Turkiga walaalayn Turkiga maaragtay xiriir badan socdo oo in badan ayaan isku dayay in Soomaaliya hatta Southwest inay soo gaarsiiyaan orjeer dhanka abaaraha gacan ay ka geysteen ilaa hadda insha Allah waa rajaynaynaa in gacan weyn ay ka geysan doonaan hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaanido marka intaas ugu muhiimsanaa labada su'aal muhiim iyo ahaa maaragtay ay weydiisay walaashayna in su'aasha kale waa nood gareystay magacyadu ku qaraabto oo dadka maaragtay ay dhahday marka taas markas anaga waa la dagaalanaa maaragtay magacyadu ku qaraabto dadka oo Southwest ku qaraabto markastaan la dagaalamayna waana ognahay dadka ku qaraabanayo haddana naf iyo maalba waa garab dhigaynaa insha Allah anaga sidii anaga aan kaga hortagi lahayn dadka magacyadu ku qaraabanayo oo la iskaga zuulin lahaa idinkana waaba ogtihiin waa taqaanaan annagana waan ognahay insha Allah marka tan naga hoos bixinayo waa la dagaalamayna insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaanado laakiin almuhiim muhiimada Southwest weeyaan sidii maaragtay Southwest State ay horumar u gaari lahayd cadow kastana loo difaaci lahaa diyaaran u nahay insha Allah Ilaahay idinkiisa markastana waan ognahay wixii cadow nagu ah iyo wixii cadow aan nagu ahayn antaasna waa ognahay waa mahadsan aad baa u mahadsan tahay